بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ka hadlayaa mowduuca message-na u ah dadka u dhashay gobolka Sool Sanaag iyo Cayn barnaamij tabaruc dad maaragtay iyagu xoogoodii iyo maskaxdoodii iyo maalkoodiiba iskugu daray dad naafo u dhalatay gobolka Sool dadkaasoo dhagoolayaal aanu ka soo ururinay gobolka gudihiisa kaliya kuma koobnin waxa iyaguna jira qolo ku sugan buuhoodle galaas caruurta dhagoolayaasha waxaa la aas-aasay 2015 ilaa 2015 iyo maanta 2020 ay tahay waxaa gacanta ku haysay hooyo muxsinada oo iyadoo aragtay baahida ay qabaan dadka naafada marka ay u samaysay waxbarasho dheeli tiran oo ay iyadu meel walba qurbo iyo dalkaba ay isku taxaluujisay inay dadkaas helaan waxbarasho dhameystiran waxay markii hore ay ku bilowday gurigeeda ay u siisay waqaf oo ay ku dhiganayeen 4 sano iminkana ilaa kharasiyo waxaa na siiyey 2 galaas oo ku meel gaadha wasaaradda waxbarashada gobolka Sool caruurtaas waa 60 qof waxaanu haynaa macallimiin shana ayaa wax u dhigta walaba macallin naloo soo tababaray oo ka yimid awdal oo hadda dhaqaale darteed uu nooga tagay haddana waxaanu jecelnahay baahidii ardaydaas inay wali joogto tahay ardayda 60 qof oo bulshadeena gobolka Sool ku dhex jiray oo maaragtay mid maadi iyo mid diineedba ka qaawana oo hadda aanu aragno dad wax qabsan karaya oo wax qoraya oo galaaskii shanaad ku jira iminka wixii dhiman in ay bulsho weynta gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn u dhashay ay kaabi doonaan waxaan u baahanahay baabuurkii oo awalba wiil reer Laascaanoodii noo iibiyay oo iminka noqday baabuur aan ku filnayn baahidoodii maadaama ay ardaydii badatay loo baahan yahay gaari ka weyn oo maaragtay caruurta lagu soo guro si aan u sugno abnigooda iyadoo jidadka lagu waxyeelayn jiray kadibna aanu hadda caqabada ka gudubnay caqabada haddana haystaa waxa weeyaan macallimiinta oo aan mushahar joogto qaadan aan ka gunaysnayn wasaaradda waxbarashada iyo gaariga ardaydu qaadanayso lagu rawaxiyo oo gaari nooha oo aan baahidooda buuxinayn oo inta iyaga lagu maqan yahay lagu soo socdo ay maaragtay waqtiga xiisada koowaad ay ka dhamaanayso marka muxsiniinta gobolka Sool Sanaag iyo Cayn qurbaha ha joogeen wadanka gudihiisa ha joogeen waxaan dareemayaa inaynu wax qabsan karayno sida dhalinyaradii isku soo abaabushay ambalaasta ay u gadeen gobolka dhakhtarka weyn in aan kuwaasoo miidhan inagu jiraan aynu u qaban karayno naafadeena wax marka waxaan codsanaynaa anigoo ku hadlaya magaca Samsima ee gobolka Sool ee u taagan naafada reer SC in maaragtay dadka naafada la soo dhaweeyo waqti la siiyo waxa aad leedihiin bay wax ku leeyihiin waa bulshadii barito waa 60 qof 4 jirku ugu yar yahay 60 jirkuna u weyn yahay inaad il dheeraada ku eegtaan 5 sanaba waxaan ku soo haynay tabaruc iyo kaalmo maaragtay bil'aadmi maantana idinkama ay dhergin elementary bay marayaan dugsiga dhaxay u gudbayaan secondary baanu la doonaynaa ilaa heer jaamacadeed baanu la rabnaa inaad hoos u eegtaan maaragtay baahidooda waxaan idinka rajaynayaa waxyaabo badan oo aan hadda islaahay way qaban karaan
iyo wax la midaba inaad buuxin doontaan insha Allah dad kartideeda lena waa tihiin reer SSC ma aha dad maaragtay iscaawin waaya dad karti la weeyaan dad cod la weeyaan dad ilbaxa weeyaan adduunka daafihiisa dhan baad kala joogtaan meel walba joogtaan waxaan jeclahay inaad u soo gurmataan maadaama maamadiina caawinaysay qof weyna ay noqotay waqtigii coronavirus kuna uu dib noo dhigay inaad waqtigii naga lumay aad dib noogu soo nooleyn doontaan dadka u dhashay goboladan waa inaad naafadiina eegtaan sida gobolada inala dariska naafadooda ay horumarka u gaadheen waa inaad kuwiina aad horumar gaadhsiisaan waxaan idinka filayaa rajo fiican iyo horumar wanaagsan insha Allah bismillaahi kariim